waad yaabi doontaa marka aad ogaato sababta loo yiraahdo mooska ha cunin habeenkii. Moosku waa mid ka mid ah khudaarta ugu macaan looguna jecel yahay dunida. Dad badan waxay cunaan habeenkii ama xitaa hurdada ka hor iyagoo u malaynaya in jirka uu moosku siiyo tamar iyo caafimaad xilligaas. Laakiin dhakhaatiirta badankooda iyo khubarada nutritionka waxay shaaca ka qaadeen sir lama filaan ah in mooska habeenkii la cuno uu sababi karo dhibaatooyin jirka iyo hurdada labadaba, taas oo dad badani aysan ogeyn. Muuqaalkani maanta waxaan kuugu sharaxi doonaa sababta khubarada caafimaadka ay u yiraahdaan ha cunin mooska habeenkii. Moosku waa mid ka mid ah khudaarta inta badani dunida loogu jecel yahay. Dad badan inay u arkaan khudaar caafimaad qabta sababtoo ah wuxuu hodan ku yahay potassium, magnesium, fiber iyo vitamin B6. Laakiin waxaa la ogaaday in waqtiga aad cunaysa mooska uu go'aamin karo inuu caafimaad kuu noqdo ama inuu dhibaato kuu noqdo. Macnaha mooska xilliga aad cunayso ayaana caafimaad kuu noqon karta, xilliga aad cunayso ayaana dhibaato kuu noqon karta haddii aadan ogeynin xilliga ugu fiican ee la cuno. Markaad moos cunto habeenkii, gaar ahaan marka uu waqtigu xilli dambe yahay ama hurdadu ay soo dhowdahay, jirkaaga ayaa si dabiici ah hoos u dhigaya shaqada dheefshiidka. Macnaha habeenkii markaad cunto, jirkaagu dheefshiidka shaqadiisa hoos ayuu u dhigayaa. Laakiin mooska oo ah miro culus ama khudaarta noocyadeeda culus, marka loo eego sokorta ku jirta iyo fiberska ku jira, wuxuu caloosha ka dhigaa mid si tartiib tartiib ah wax u shiida. Macnaha dheefshiidkii ayaa hoos u dhacaya. Tanina waxay sababi kartaa in mooska markaad cunto habeenkii aad dareento dibiryo caloosha ah, sidoo kale inaad dareento gaas iyo inaad gudaha caloosha ka dareento xanuun, taasoo mararka qaar keeni karta hurdadaadu in ay qasanto, in sidii la rabay aadan u hurdin, sidoo kalena inaad dareento in laabjeex ama gaas uu habeenkaas oo dhan ku hayo. Cilmi baaris lagu sameeyay jaamacadda Harvard University ayaa waxa ay muujinaysaa in cunista mooska habeenkii ay kordhiso wax loo yaqaano acid reflux ama gastric bloating. Waa gaaska caloosha ama dibiryada caloosha, gaar ahaan dadka qaba gaaska daran. Haddii marka aad ka mid tahay dadka gaaska daran qaba, muhiim ayay kuu tahay in aad joojiso in aad cunto mooska habeenkii. Tanina waxay sabab u tahay in mooska uu hodan ku yahay tryptophan, taas oo ah maado marka jirku si xad dhaaf ah oo jirka ay ku noqoto keeni karta daal iyo qofka in ay ku cuslaato hurdada. waxaa kaloo jirta dhibaato kale oo qarsoon oo mooska. waxaa ku jira mooska maadada magnesium, taas oo faa'iido u leh jirka guud ahaan, balse marka la cuno habeenkii, weliba qofka isagoo gaajeysan, haddii uu mooska cuno habeenkii, waxay carqaladeyn kartaa maadadan magnesiumka, dheelitirka calcium iyo potassium. Markaad cunto habeenkii, weliba caloosha oo faaruq ah ama adigoo baahan, haddii aad cunto habeenkii, waxaa magnesiumta ku jirta ay keenaysaa in calciumti iyo potassiumki dheelitirkoodii uu meesha ka baxo. Tanina waxay sidoo kale keeni kartaa xanuun inaad dareento habeenkii ama hurdadu inay kugu yaraato, maadaama maadada magnesium ay muhiim u tahay hurdada. sidoo kale calciumta iyo potassiumta dheelitirnaantooda in ay muhiim u tahay hurdada. dhakhaatiirta nutritionka waxay ku taliyaan in mooska la cuno duhurkii ama galabkii xilli hore. waqtigaas jirku wuu firfircoon yahay, si fiican ayuuna dheefshiidku u shaqeynayaa. moosku sidoo kale wuxuu bixiyaa tamar, wuxuu dejiyaa neerfaha, wuxuu hagaajiyaa dheefshiidka. laakiin marka qofku cuno habeenkii, gaar ahaan haddii moosku aad ku darto ama aad la qaadato cuntooyin culus sida rooti ama caano, arrintaadu waxay isu bedelaysaa calool xanuun iyo gaas iyo hurdada oo kugu yaraato. sidoo kale waxaa la ogaaday in mooska uu sababo, haddii habeenkii qofku uu isticmaalo, wax loo yaqaano mucus build up, taas oo ah in xab uu kusoo aruuro cunaha, gaar ahaan marka qofku uu cuno habeenkii. dadka qaba inta badan neefta ama asmatiga ah waxay dareemaan in neefta xoogaa si ugu adkaato marka ay cunaan moos xilligaas oo kale. macnaha haddii aad marka neef qabto, haddii aad burkiito, waxyaaba noocaasa ama cudurada naqaska ama neefta la xiriira, waxaa mamnuuc ah ama wanaagsanba inaad bajoojiso totally inaad mooska habeenkii cunto. moosku marka waa khudaar caafimaad leh, laakiin caafimaadkiisu waxay ku xiran tahay xilliga aad cunayso. haddii aad rabto inaad ka faa'iidaysato faa'iidada macdanta iyo maadooyinka ku jira mooska, cun mooska subaxdii ama galabkii xilli hore. waqtigaas jirka wuxuu siinayaa tamar. laakiin haddii aad cunto wixii maqribka ka dambeeya, culays ayuu kuu keenayaa. dhakhaatiirta Japan waxay ku talinayaan in mooska la cuno ugu dambeyntii 5 galabnimo, taas oo ah marka jirku si buuxda u nuugo nafaqada, halkii laga cuni lahaa fiidka. marka aad ogaato marka sirtan, waxaad fahmaysaa sababta khubaradu caafimaadka iyo dhakhaatiirta nutritionka ay u dhahaan cunista mooska maalintii waa saaxiib,
balse habeenkii culays ayuu wataa. marka xigta ee aad damacdo inaad moos cunto marka hurdada ka hor, xusuuso in moosku uu yahay qudaarta ugu fiican ee la cuno maalintii. waxaan rajaynayaa inaad muuqaalkani wax badan ka faa'iiday. saaxiibadaada la wadaag muuqaalka.